حديث عظيم هيا النبي وحو الله صلى الله عليه وسلم قفكم مركو دينتو صدح باراعة لبا ويسول لابتان هلنا واكو هرع وحراعة أهل كيسية مال كيسية عمل كيسي لبا أذوقوا وأتشيدا لكن هل أبتشيدت مال كان وأتشيدا وأركيسا إنه راعي أهل كي قرابدي إن الراعينا وأركيسا لكن عمل كوار راعي أذوقوا متشيدت لبدان ويسول لابانيان أهلك يا مالك عملكنا وهريا معناها حديث كاسي وحويان بني آدمك الدنيا دان دحديدا وحول ليهي أهل أولا نول يهي إيا نولال أو كن نول يهي أو مال لبدا صاحب مفاروقيان عملكنا مفاروقهي لبدا وكتغيا وفاروقيا أيغونا ويكهرهي ولذلك لبداس يقع إن لغو مشغوله oo looga mashquulo ilaahay dhikrigiisa ilaahay waa ka dig ya ayuha alladhina aamanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dhikrillah labada ugu badan oo waagu markuu bariya aad u soo kalahaysaa oo habeen iyo maalin aad ka fakaraysaa oo diyaaradaha u raacaysaa oo maraakiibta u soo raraysaa oo dabaqyada u dhisaysaa waa maalka ina ilaalisid iyo ahalkaaga labadoodii inay ku mashquuliyaan oo ilaahay dhikrigiisa iyo xuskiisa ka mashquuliyaan waa lagaaga digay bibnu aadam markuu ka taga adduunyadan oo uu wareego wax maalkiisa oo anfacahaya male wax ahla oo anfacahayaan male illa ahlku inay ku anfacaan ducaa ay u duceeyaan يصدقاء يبحيان أميان مالك أنفعها يا ووحي هربر صدي وح كلام في عميان وح الله وحي جوارئها وحي دارها وحي أسقو خاص أهان وقول لبسنا دركي سيئة وقولي خاص كوحي يا ليئة مرة عيان من أنفعها يان هل كاسو أيان إلهي وحي الله يا مال كاس كهر يقفك وأقابل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومال أن عرور إيا مال وحبا أين ننفعه وحي إلهي إليه ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وحنوت مادين إذنكو كلي سيدي مركي وروا كلي قال لقوا أبوري وكلي هذا هاي أيا إذنكو كلي نوت مادين wixii aan idin siinayna gadaal ba uga soo tagteen safar dheer ayaa la qaabilaya sahayduna waa yarta meeshuna meel laga dhamaanaya ma aha rixladaas dheer oo muhiimka ah oo nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam haduu qofku dhinto amalkiisa inuu go'ahayo illa saddex mooyaane illa min sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u صدقة جارية ومساجداس ومدارستاس وعيلش وقف كاه لقضها هيو وحيالها عام كا أو وقف كا أو إلهي اللي دوانا يقفك والسمين هيو وعلم ينتفع به أقوان ولها أضدك أو بريء أو لقو انتفاع هيو وولد صالحة أو تربيي أو كد ذالي أو سود عيني صاحبك كوبات oo ka haray waa ahalkii markay hareen waxa laga yaabaa inaynan ilaahay dambi dhaaf ku weydiinin maalna aynan ku soo sadaqayn mashquulna ay ku yihiin mar ay ooyahayaan oo murgayaan iyo mar ay ku dirirayaan wixii adigu aad ka dhimato oga tagtay oo ay qaybsanayaan bal waxa laga yaabaa qof ajnabi ah oo dhaxalkaaga aan waxba ku lahayn inuu kaaga nacfi bato waxa weeyaan caruurtaada iyo xaasaskaaga iyo ilmihii aad ka tagtay oo asagu markuu maqlay hebel waa dhintay saaxiib uu kala ahaa daraadeed ilaahay uu ku bariyo
oo uu kugu murugaysan yahay ilaahay kuu weydiinaya ilaahay inuu kuu dambi dhaafo ayaguna ay ku dirirayaan oo ku murmayaan oo kala boobayaan dhaxalkaagii ay mashquul ku yihiin bal waxaa laga yaabaa ahalkaaga qaar ka midii cadow inay ku ahaayeen oo ay sugayeen geeridaada si ay maalka sida ay rabaan ugu tasarrufaan caruurtii ay yac ka oranaysay oo aad ka ilaalinaysay walaalihii aad ka ilaalinaysay haweenkii aad ka ilaalinaysay oo qof walba ciil intaa la kala go'naa oo oranahayeen odagu waa qani fakri iyo dhibaatuna nagu hayaa allow adduunyada mar ka tago cadow inay yihiin oo aad iyo aad ugu farxayaan oo aynan kuwa murgahayn ayaa dhici karta ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu inna min azwaajikum wa awlaadikum caduwan lakum faxdaruu waxaa ka mid ah xaasaskiinna iyo awlaadiinna waxaa ka mid ah kulligood ma aha waxaa ka mid ah kuwa cadow idin ah ee ka digtoonaada saaxiibkaas labaad oo maalka ah asaguna waa kaa haray kuma raacin nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaquulu ibnu aadam maali maali ibnu aadam wuxuu leeyahay maalkayga waa ku faanayaa waa sheeganayaa waa ku ammaanayaa maal buu leeyahay buu ku faanayaa hantida uu leeyahay maalkayga ayuu leeyahay wahal laka ya ibna aadam min maalika ilaa maa akalta faafnayt aw labista faablayt aw tasaddaqta faamdayt ibnu aadam oo maalkan aad ku faanaysid miyaad ku leedahay ilaa wixii aad cuntay ama aad xiratay ama aad hormarsatay mooyaan wax kale miyaa ku leedahay xaqiiqadu waxay tahay maalkaaga waxaa ku leedahay inta xala aad cuntay saaka aad ka cuntay bari aad ka cunaysid haddii ilaahay ku gaarsiiyo nolol marada aad ka xiranaysid gaariga aad ka wadatid inta yarta oo kugu wareegaysa ayaad ku leedahay waxa akoonnada yaalla waxa daaraha ku jira waxa dhulka ku jira waxa beeraha ah adigu waad ka tegaysaa malihid inta aad ku nacfinaysid baa ka leedahay iyo wixii aad hormarsatay oo kali ah walidaalika nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada su'aal buu weydiiyo wuxuu yiri ayyukum maalu warithihi ahabbu ilayhi min maali qofkee maalka waaridka dhaxlaya maalkiisa ka jecel maalkiisa asagu uu gooni u leeyahay markaasay saxaabadu waxay ma minna ahadun illa wa maaluhu ahabbu ilayhi qof inaga midihi maba jiraba illa maalka asagu uu leeyahay uu jecel yahay midka dadku ay dhaxlayaan oo qaadanayaan wuxuu ka jecel yahay midku asagu qaadanayo leeyahay markaas nabigu yiri fa inna maalahu ma qaddam wa maalu warithihi ma akhar maalkiisa qofku uu leeyahay oo dhabta ah waa midka uu hormarsado midka uunan lahayn oo laga dhaxlayana waa midka uu ka tagay weeye ka asagu mal walidaalika qofka maal waxa uu ah midka asagu uu hormarsaday oo uu aakhiro geystay oo asagoo nool uu baxsaday baa maal u ah bacdu saalixiin baa waxaa lagu yidhi dadku maxay geerida u nacayaan qof kasta dhimashada waa necab dil yiri caawa dhimanaysa ama bari baa dhimanaysa cunadu waa ka soomayaaba cabsi baa soo food saaraysa markaasuu wixii waxa loo nacayaa waxa weeye litacdiimika dunya adduunyada weynaynaysa oo kala weyn jacalta maalaka bayna caynayk maalkaagi baa waxa uu taagan yahay indhahaaga hortooda markaas maalkan diidaysa inaad faaruqdido ka tagtid haddaad maalkan hormarin lahayd waxa jeclaan lahayd inaad ka daba tagtid oo qofku markuu maalka hormarsado wuxuu aaminayaa wax wanaagsan inay ka horeeyaan noloshaan oo dhan buu iska nacahayaa inuu horay u socdo ayuu jeclaanayaa laakiin markii uu maalkiisa u celcelinayo oo maalku hortiisa dhooban yahay inuu faaruqa ayuu nacaya oo ka dhinto saaxiibka saddexaadi waxa weeyaan amalka waa saaxiibka dhabta ah waa midka qabriga kula galahaya oo markii caruurtaadu ka tagta kugu harahaya waa midka maalkaagu markuu ka tago ka laabto kugu harahaya qabrigu kugula jooga ku faaruqi mahayo marka soo baxdina waa kala soo baxaya mawaaqifta qiyaamaha dhan buu kala maraya siraadka ayaad ku maraysaa miisaanka ayaa lagu saaraya jannada meesha ka dagi lahayd ama qofku naarta meeshu ka dagi lahaa waxa lagu qaybinayaa amalkaas lagu dhifanaya lagu qaybinayaa من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها
قفك عمل صالح سمية نفتي سوء دني قفك حمية عمل كيسنا نفتي سأيك أنت ودوشي سيئات بل عمل كاس إلهي وحو كتل مامي سبحانه وتعالى قفك إنه قول النقنا هيو من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون قفك قالوا بقى سجد دوشي سيئاتي سجد كجو أنت قفك عمل صالح سمينا نفتي سا أيو جوجل حاري أو جوجل أودي عمل كأقول عكون نقنا يا بركنتي شادريجي جوي هو اللي ماشي أصيحان لهاي قريجي أدقي لهاي عمل كأجا أيكون نقنا هاي هدول حن يهينا وحماضي جوجل حن وعذاب جوح عذاب بركن عذاب قري عذاب أيو كدتشينيا هدو وناكسن يهينا وكو وناكسن هذي كل قد وحي يكون نقنا النمعاء يشم ولذلك كما وحي أهل العلم ويرادان العاقل قفك عاقل كأ oo aan doqonka ahayn oo aan dabaalka ahayn ee caaqilka ah waa qofka waxa weeyaan guriga muddo dheer uu degnaanaya camira walowba ha ku camiro inuu soo gada gurigii oo mar dhow ka guurahayo adduunyada haba ku camiro qofka guriga uu og yahay inuu muddo dheer uu degnaanayo qofka guriga maal galiya oo camira oo juhdi ku bixiya hada huwa al-aaqil waa guriga qabriga weey walaw haba ku kalifto inuu gurigu mar dhow ka guurayo adduunyada intuu iibiyo suuqa geeyo oo midka rasmiga ku camira ha gaarto arintu walidaalika boqorkii la oran jiray boqor Khalid oo boqor Fahd ka horeeyay Sacuudiga ayaa waxa la yiraahdaa wuxuu soo booqday Alaamah ibn Uthaymin caalimkii culimada Sacuudiga kamid ahaa Muhammad bin Salih al-Uthaymin markuu salaamay oo gurigiisa ugu yimid buu la yaabay guriga qaab daradiisa iyo sidoo gurigu burbur u yahay iyo sidoo guriga uu san ugu qalmin ninkan caalimka ah oo culimada waaweyn iyo guriga uu degan yahay buu la yaabay saysan munaasib iskugu ahayn markaas wuxuu ku yiri waxaan ku amrayaa xaafadaas in laga dhiso guri weyn oo caalimnimadaada munaasib ku ah dadka ku qaabishid fadhi weyn leh maktabadu ay kugu taalo guri weyn habaysan ayaan amrayaa in lagu dhiso markaas Alaamah ibn Uthaymin wuxuu yiri guri baa jira hawshiisa hadda aan wadno oo waxa weeyaa shaqadiisa dhismihiisa aan ku jirno oo mar dhowna aan u guuri doono xaafad heblana aan ka dhisayna ayaa jira iska daa waa yahay wiil khalaas iska daa dadkii sheekha xirtiisa ahaba waxay yiraahdeen ya sheekh xaafadda aalada guri baan ka dhisaynaa oo hawshiisa socoto oo gabagaba oo u guuri doona aaladaha anaga guri aaladaha kuma ogin xuyaa gurigaas markaasuu yiri xaafadaas oo xaafada maqbarada iyo quburuhu ku yaalaan maaha guriga aan dhisayna waa amalkan hadda aan wadno ayaa halka guri nooga dhisahaya asagaana u guuri doona oo degi doona asagaana rasmi sabtigii dhaweyto oo la soo dhaafay ayaa waxaan raacay diyaarad safar yar oo aan ku tagay gobolada meel kamid nin baa dhinacayga fadhiyay ninka daadiisu 45 sano meelahaas waa nin ganacsada oo shaqaysta xajkii dhaweytana waa ku arkay sheeka markaan nadhex martay ayuu wuxuu yiri aniga karfantii la igu karfani lahaa waa ii diyaarsantaa meel bay taalo دينا لا يقبله وأنا إبسل كرفنتين أو يرتع فرتني 5 سنة بشرتان اللي يراقن عصدها تعالى أعمارتي نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم ويري أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 ومضى إذا عمري قيدوا لحدا إلى تضباطا واحد عافا يابا إسكير
cimrigii 7 marka laga soo qaado laba kamid ah xaggan mariyay buu yiri midkii kale aan ku dhex jiraa inay bari noqon doonto inay saa damba noqon doontona ma ogi deeyna inaan qaato diyaaru ma ahi karfantayduna waa ii taallaa waxaana ku quustay buu yiri xamar waxa ka dhacay oo aan goobjooga u ahay maalin walba oo saaxiibaday oo kala duwan mid iga yar iyo mid iga weyn iyo mid ila eg mid kasta intuu soo toosay asagoo shaqo u socda oo hamigiisu yahay waxa iyo waxa qabatid oo hadhowta lagu sida hilbihiisii bac oo fahmi ah marka aan arkay ayaan is aruuriyay buu daartan aad ka guuraysid oo aad hubtid inaad ka guuraysid ayna tanzilu qadan xagee degaysaa guriga aad degaysaa waa xagee guriga marka aad degaysid magacaagu uu harahayo oo lagu leeyahay meydka oo qaraaba aynan ku soo booqanahayn oo maalkaaga lala wareegahayo adiguna halkaas aad ku tahay maxbuus waa daartee wax dheer kaama faga waa meesha shalay geysay walaalka adeerka saaxiibka qaraabadaadii meesha u sii waday ayaa maalmo yar laga yaabaa inay ku dhimanta ama ay saacada ay kaaga dhimanta ayaa laga yaabaa walidaalika ahlu cilmigu waxay yiraahdaan i'mal lid-dunya ala qadri mukthika fiha adduunyada u amal falo u shaqayso inta aan nagaanaysid ku jaango wa'mal lil-aakhirah ala qadri mukthika fiha aakhirana waxaad u amal falataa inta aan nagaanaysid adduunyada waxaad nagaanaysid waa taqaanaa waxa laga yaabaa boqolba waliga inaadan gaarin ku jaango marka waxa istiraahdaa boqolba ka soo qaad waxaan aad haysid oo aad dhistay oo aad tabacday boqol maahana boqolaal sanay sii soconay soo gaabi marka maadaama ayadii waqtigeedii uu yar yahay inta aad nagaanaysid ku jaango aakhirana waxaad u amal fashaa inta aad nagaanaysid waa imisa waa meel aan laga soo laabanahayn hadii mar la aado khabarkuna uu tago aan laga soo laabanahayn meeqaan qaadnay oo geynay aan is aruurino aan ilaahay u toobadkeeno aan istighfaarta badino aan cafis raadino cidii aan dulminay aan waxa aan haysano إلهي أقول سبحانه وتعالى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين